marar badana waxaa maqashaan Puntland waxay diiday in Garowe la yimaado wuxuu codsaday Axmed Madow halka jooga inuu halka yimaado dawladdan waxay aad u isticmaashaa dadka Soomaaliyeed meesha ay ka liitaan oo qabiilka ah oo runtii inay xoqdo ay aad u jeceshahay taas oo dadka aan dan ugu jirin qof mas'uul ah oo marxaladan jooga inuu qabyaalad u gurbaan tago isagoo og 30 sano soo dhaafay wixii dhacay runtii waa nasiib dar waxa halka ka soo baxday in la yiraahdo waxa Soomaaliya isku haysta waa niman daarooda Garowe ay ku soo shirayaan iyaga waxooda xallisanaya runtii waxna qabta ma ahayn wax Soomaali ay wada leedahay in la yiraahdo annaga kaligiina ka wada hadlayna maxaa yeelay dabinkaas mar hore wuxuu nagu galiyay Dhuusamareeb markaan joogno saddexdan kaliya nala faqay annagoo moodeyna inaan xal u helino marka aad mar dagaal mar labaad waa dhacasnimo yeelata waxaan codsanay meel madal ah oo la joogay inay noqoto inay Muqdisho noqoto waxa uu mar walba Muqdisho u diidaa waad ogtihiin waa meel dadkii qadiyaddan ay wada khuseysay dhan ay goob joog ku yihiin waxaan niri waa inay Muqdisho u noqdaa dabcan internationalka oo mar walba garwadeenka ah waxay u arkeen logic waxaan tagnay kowdii iyo meelaha inay baan filay September 2020 baan xamar ka degnay iyadoo magaalada xamar iyo dadka deegaanka jooga ay qarka u saarantaa inay qarxdo iyagoo fahmay dawladda tan inay doorasho rabin ay rabto inay ku darsato oo si xoog iyo jajoob ay ku joogto magaalada oo dhan oo cabursan oo mid la hadlay oo jirin ay qarka u saaran tahay inuu dagaal sokeey ka dhaco baan ka degnay ilaahay mahadiis dad wanaagsan oo Soomaaliyeed oo niyad wanaagsan oo arka haday khaladka ka hor yimaadaan natiijada ka dhalan karta inay xarbi tahay xuruubtu markay dhacdana dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad nugul oo ay qabyaalad isu bedeli karto iyagoo ka rabay baaqsadaan waxay u noqotay faraj imaanshaheeni waxaana daliil u ahaa sida wanaagsan ay dadku noo soo dhaweeyeen markaan u tagnay wuxuu yiri waxaan rabaa labadiina maadaama igu diideen Garowe saddexdan kaliya shireen nimankii kale oo saaxiibadeen ahayna wuxuu yiri ha imaanina xamar maxamed banaankeeda jira anu inta halka tagin waa la hadlay waxaan qorqor baan la hadlay waaraan la hadlay waara alle marka xamar ku sugnaa lafta gareen baan la hadlay waxaan la socdeen wax walba sida isu bedelayaan waxaan ka codsaday xamar markaan tagin inay noogu yimaadaan waxay yiraahdeen annagu iskama imaan karnaa hadduu madaxweynaha imaado yiraahdo waa imaanayna kulankii ugu horeeyay aan isku aragnay oo dadka qaybtiis inay ilaawsan yihiin baa binici karta waa inaad dib u raacdaan maalintaan tagnay maalintii ku xigtay habeenkeedii annagoo diidan ayuu wuxuu iclaamiyay Twitterkiisa la soo dhigay inuu shir jiro official ah shirkaas maan tagin maxaa yeelay heshiisku ma ahayn annagu waxaan nidhi shir gaar ah ama waxa unilateral ka yiraahdo umaan imaan halka waxaan u nimid sida mar walba lagu celcelinay heshiis wada jir ah oo dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha kamid ah ay u siman yihiin markii aan aragnay inuusan soo socon waxaan la furnay consultation hay'adihii dawliga ah mujtamacii dawliga meesha joogay iyo siyaasiyiintii kale ee xamar ku sugnay dhaqdhaqaaqaas siyaasadeed waan kula kulanay musharaxiintii xilka u taagneed oo ka mid ahaayeen madaxweynayaashii hore ee dalka oo markaas Xasan Sheekh uu kaliya ku joogay dhaqdhaqaaqaas waxaan la kulanay baarlamaanka aqalkiisa sare waxaan la kulanay madaxda baarlamaanka aqalkiisa hoose waxaan la kulanay safaaradaha jooga waxay soo dedejisay taas pressure ah in loo yeero madaxdii kale dabcan wuxuu aqbalay in madaxdii kale ay timaado waxaan rabaa inaan
hadalkeena haduu gadaal baa uga noqonayaa waa tanaasulaa buu yiri inuusan talaasulin baan rabaa inaan sheego oo marka hore aado wado xiran oo ay suuragal ahayn in darbiga madaxa la dhaco oo ku khasbanaado inuu dib u soo noqdo ninkii ka shaqeeya waxaan shaqeynayn aakhirka waxa weeye isagu baa dib u soo noqonaya waxa ay noqotay in la isu yimaado waxaan rabaa maanta maadaama xalkii Soomaaliyeed uu cakiran yahay inaan public u sheego waxyaabo qarsoodi ah ama hadallo dhexdeena maraya haddaan anigu been sheegayna waxaan rabaa inuu isagoo declare gareeyo dhawa beentiis waa kulannay waxaan u sheegay inay xaaladdu adag tahay sida uu ku wado isagoo ka xun inaan engage gareyno dadkii mucaaradka ahay magaalada jooga iyo dadkii kale wuxuu yiri maxaa ka doonteen dadkaas anaa marti ay haydeen warada caasimadii magaalada madaxda Soomaaliya haddaan nimid oo safaaradihii dalka ay joogaan oo dadkii Soomaaliyeed ee qabaa'ilkii Soomaaliyeed ay ku dhan yihiin waliba hal isxaantay oo hawiye xaruntiisii xuduntiisii ah waxaan leedahay arkinina oo kala xaajoonina xalka Soomaaliya in dadka Soomaaliyeed aan kala irdhoobin waxaan taas suuragal ma wuxuu igu jawaabay dadka halkaas ka jooga waa dad iska qeylqeynaya ciidan ayaan haysanaa wax naga qaadi kara wax ma jiro anu hadda waxa hadalka iga keenay ciidan gadaal baan ka ogaaday waxaan mooday wiilashii aan aqaanayo madaxtooyada joogi jiro hadda u badnaa reeraha kan deegaanka iyo dad noocaas war ciidanku soo ciidankan aqaan ma beelbeesha ahaayo see wax u jiraan maya waa mas'uuliyad baa naga saaran dawladda gacan biraan ku qabanayna meelaha qaybtoodna isagoo uga hadlay 10 qof oo wax diidan waad aragteen baan u maleynaa meediya aan runtii waxay la noqotay wax mucjiso ah oo aan sax ahayn mar labaad waxay nagu kaliftay inaan inaanu walaalow dadkan khatar ha gelin ani Axmed waxaan war ma doorasho rabta hadda wuxuu dhaaway khiyaameen ma doorasho rabta annaga ku dooranayna walaalow balgal haddaad baahsa ugu bugtid annaga ku dhisayna dalkan ka daa meesha ku wadid khatar buu ku socdaa habeen dhawadu soo wacay wuxuu yiri 17 September ma ogolaadeen marka ay tiri waa ku dhisayaa baan ogolaaday waxa ay hadda wada sax la timid haddaan ku leeyahay maxaa mushkilo ku jirta hadii lagu dhiso laakiin markaasna waxaan ku lahaa war processka iyo doorashadaada iyo campaign-kaaga laba ka kala dhig processka waa lagu wadaagaa dad baa kursigan damac kaga jira oo xaq u leh inuu noqdo doorasho loo siman yahay processku ama campaign-kaaga iyo xodashadaada iyo waxa isku xirxiraysid de waa shaqadaada iyo hadda ha qaban kuma dhahay damacuna waa shay qof kasto bani aadan ku jira hadduu arko inuu munaasib u yahay marxaladaas madaxda kale markaan aragnay waxaan ku niyadda ugu dejinay inay annaga naga warsugaan inaan la nimaano wax qancin kara heshiiskaas aan keenay oo sida runtii hagar la'aanta ah iyo wada tashiga ah looga qayb qaatay madaxdii dawladaha federaalka ay joogtay xilligaas oo ra'iisul wasaare ku xigeenka ra'iisul wasaarihi waa uu diiday inuu magacaabo ilaa heshiis la gaaro ilaa baarlamaanka aqalka sare markaan tagay Cabdi Qaybdiid iyo Muusuud ay qabsadeen iyagoo dhahay daarood baatay ninkii nooga keen kursiga ilaa xoolo kala qarsan maayo waa uu diiday inuu magacaabo ilaa ay heshiis ay la gashaan aan anigu rabo heshiiskii baa si allaale iyo sidoo waxaan ku niri war doorasho qof iyo cod laga ma gaaro doorasho dadbanna de waa la yaqaana wadadeeda waxa uu ku dhigay in wax laga bedelo maxaa rabtaa inaad ka bedeshaan marka wuxuu yiri waxaan ka rabaa ugu yaraan in laba meelood laga dhigo isagoo ula jeedo in gado doorasho lagu qabto waan Axmedow ku haleyn karin Ismaaciil waxaan hayaha loo yeelo waxa kale oo waxay ahayd cosmetic aan badnayn tira markii hore ay dhaheen 300 weeye iyo midii taa ka horeysay oo 260 oo continue ko ahayd baa la yiri 100 iyo hal laga dhigo inta kale doorashadu waa doorashadii 2006 iyo hadnaankii lagu galay 16
intaa markii si la isugu raaco waxaan kala shaawirnay madaxdii iyagana doonaysay doorashada oo qodobku aad ugu deganaayeen ah in xisbiyo lagu galo ayaan waxaan nidhi haddaa xisbiyo idinkuna aadaan xisbiyo ee doorasho dadban isma gelayso xisbiyadu waxay imaan doontaa markii doorasho toos ah la aado idinkuna ka tanaasula negotiationkaas inta badan anigaa gelay dhinacyada u kala dabqaaday heshiis dawladihii xubnaha ka ahaa iyo dadkii dawladnimada rajada ka qabay xukunka iyo cid walba iyo internationalkii aan la wadaagayn oo la isla qaatay buu ahaa khudbadiisii baarlamaanka wuxuu yidhi Siciid baa qorqortay iyadana waa nasiib darro kale bahashii hal bil aan u fadhinay xamar si loo sharciyeeyo madaxweynaha iyo cabdi xaashi isma salaami jirin ismana arki jirin mana ogolayn inay labada aqal isu yimaadaan waxaan ka codsaday inaan shaqadaas qabto waxaan ugu tagay cabdi xaashi gurigiisa isaga iyo labadiisa ku xigeen waxaan ka codsaday wax kastoo jiro hore inay liqaan maanta Soomaali u hiiliyaan heshiiskan ay wax ka ansixiyaan labada aqal oo isdiidanaana ay is ogolaadaan mursal baan la hadlay waa isla qaateen bacda shidda wa tacab waxaa halkaa ka soo baxday niyad samaan dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo calool furnaan kulamada gaarka aan yeelanay isagoo dareemaya inaan anigu dhisi doono wuxuu ila wadaagay xogo uu u arko dalkan inay sahlan tahay inuu marlabaad ku soo noqdo oo uu haysto ciidan iyo lacag iyo xoogag wadaniina oo meel walba u jooga oo ay ku jirto Puntland waxaan ku eray xirfad iyo xeeladaada hadda adeegsanaysa waa hawl adag ku taal laakiin processkaas uu naga khaldamay hadda intaad processkaas martid xeeladaada iyo xoogaaga ana xoog kulama talinaaye aad wax ku qaadaysa ani ilama ahaan inaan Soomaali xoog u qaadaysa garashadeeda laakiin wixii xeelad ah anigu hadda kuguma haysto waa ku furanta mar allaale markaan shirkii ka tagnay oo gudiyadii la magacaabay ayaa horta xaaladii la sheegay soo baxday gudiyadii la magacaabaa waxa ka soo baxay qaylo waxa kale oo ka soo baxay gado ayaantii markaan tagnay 2 maalmood ka bacday in ciidan kale hor loo diro waxa ka soo baxday niyad xumo ah heshiisku inuu ahaa wax la iska madmadoobeeyay maxaa yeelay hadduu heshiiska dareenayo Siciid baa iska qorqortay ma dheheen heshiisku warqad la iska saxiixay oo marxaladda looga gudbaayo un bay ahayd kriteeriyadii lagu heshiiyey habkii dadka loo xuli lahaa wixii oo dhan buu hareer maray markii aan kala hadlanay oo niri war sidatan wax laga bedelo wuxuu diiday in la isu yimaado wuxuu yiri heshiiskii waa dhacay 8 qof soo dirsada annaga niyad wanaagii markii ugu horeysay afartii ugu horeysay waan magacaabnay afartii markii la magacaabay oo qayladii ay badatay oo dadkii musharaxiinta ay annaga naftarkeena nagu eedeeyeen inaan u daaroodaynay oo ninkii hoosta wax kala heshiinay oo wixii aan u sheegaynay oo ah process sax aan khiyaanay oo gudiyada soo baxay ee noqdeen niisa iyo maxaa la yiraahdaa iyo xoog wadaniin iyo wax kale oo aan garanayn runtii annaga waxay nagu noqotay xaaje inaan ka jawaabnay aad u adagtay waxaan rabaa inaan inii sheego kulanka la hadalka isniinta aan sameyn jiray waxaan u joojiyay wax badan oo fool xun oo dadka niyadiisa xumeynaya inaan sheegaan aad u diidana oo aan ogahay si u dhacaan maxaa yeelay nin weyn hadda meel soo istaagto xaqiiqada ka hadasha ama inaa ka aamusid waxa socday wuxuu damiirku isiin waayay sida waayaan dama la caadaystay ee ah in wasiilada la gaaro kaliya oo bulsho vulnerable ah oo iyada dhan u baahan in la dhiso loo danqado aan laga fakarayne xukun aan la rabin in bulsho loogu shaqeeyo sababta loogu orday ilaa hadda wax aan fahmin la ay ka mid tahay
propaganda iyo qaab shaqo oo la aaminsan yahay inay suuragal tahay ragga mas'uuliyiinta xamar ka mid aan weydiiyo waxaan eri war xoog iyo jajuub maxaad ku xukumi karaysaa wuxuu yiri al-shabaab badalkay ku xukunta oo sida al-shabaab haddaan noqotaan maxay tahay waxa raadinaysaa ilaan dastuurkeenu argagixisnimo iyo xoog iyo jajuub in dad lagu maamulo ma qoraay ummadda caqliga saliimka ana diyaar uma ah nolosha dabiiciga ana taas ma keenayso runtii waxaa ka soo baxay aragti aad u adag markii shirkaas uu istaagay oo dood badan laga galay waxaan codsannay in shir kale la isugu yimaado waa diideen waxaa soo martay 7 bisha December shir la yiraahdo International Somali Partnership Forum oo xamar ka dhaca ayaan waxaan isniin waa fursade shirkaasana lagu casumay markii aan madaxdii dawladaha iyo isla hadalna oo niri shirkaas aan isugu nimaano si aan ugu lafagurno waxa jira dawladii way joojisay waxay tiraahdaa ha imaanin internationalkuna si fiican bay ogyihiin habeenkii annagoo xirxiran baa la soo hadlo madaxweyne Axmed Qoorqoor xamar joogana waxa la yiri inta xamar ka tagtid oo galmudug tagtid suunka ka soo gal hadda xamar uu joogaa suunka meel kasta laga gali karaa waxa la yiri xagga tagoo suunka xagga soo gal annagana ha imaanina waska aamusna waxaan khilaaf ilaa wix kasta daakaas khilaaf buu wadaabay dadka caamada halka fadhiyo oranayaan wal haday khilaaf dhalayso kaadi badan waa loogu gol badayaa baa la yiri bal iyadan aan dhowrno ra'iisul wasaariyaha halka yimid oo la soo diray intuusan imaan markay taas dhacday baan iri Qoorqoor hadaa xamar isku arki weynay adiga garow igu ma madaxdu ay maqlaysaa been haddaan ka sheegay markii la maqlay inuu halka imaanayo ayaa isagina lala hadlay waxa la yiri baaqo annaga tagin ra'iisul wasaariyaha halka yimid ra'iisul wasaaraha Qoorqoor ma uusan imaan ana imaanay buu yiri isaguna ha baaqdo halka markuu yimaadana habeenkii ugu horeysay wuxuu yiraahdaa 8 qof aan rabaa inaan ka qaato oo diyaaradda la raaco wax kale ma ka hadlaysaa maya marka 8 isiisid ka bacdi aan ka wada hadlayna waxa ri 8 hadda diyaarad kula raacday anigu hadda ma hayo wixii damo dhacay anu ka hadli maayo halkaas hadda idinka goob joog ah ilata halkaas marka ay marayso waxaan mar labaad aad looga shaqeeyay in la xaliyo halka waxa yimid internationalka dad aad u far badan ay yimid waxaan niri waa yahay madmadow baa jira waxbaan tabanaynaa haddaan wax tabanayno inta aanan doorashada hore loo gelin hal la isu yimaado oo tabashada hal la is dhageysto xujadeena waxay noqotay xujo viable ah hal la is arko ceeb ma aha waraan saragno Soomaaliya wada joognaa meel kale wada joognaa internationalkii markay kari waayeen madaxweynaha oo yiri arki maayo hadii 8 keenin oo bahash isjiidantay oo internationalkii ay ku soo ururtay horta 8 keen iyo horta shirka qabo isagu ma tanaasul jireen sidaynu tanaasul waxay anaga tanaasul 8 baa hadana sheegnay waxaan ila shirka hadana xamar lagu qabto wuxuu yiri xamar lagu ma qabanayo xagee lagu qabanayo markaan niri xamar lagu qabto oo 8 soo saarnay buu isagoo waxbana ogeysiin wuxuu yiri Dhuusamareeb iyo bisha meeqay 15 ma qaan waxay heeday Dhuusamareeb baan qabanaa shirki oo la tashi una la gelin waxay nagu kaliftay annagoo xog badan oo og xaaladda Dhuusamareeb ay ku sugan tahay amni waxay kaliftay inaan mar labaad annagoo maalinta aan bixin habeenka ka horeeyay 12 hoobiye lagu dhuftay Dhuusamareeb inaan sacrifice sameeyo aniga wafdigii la socdo mar labaad haddana aan tagno kii joogay oo ku dhacday hadda waaba joogay laakiin kan la yiraahdo imaw ka war oo la leeyahay 10 kilomitir loo jira madaxdii la socotay dadkii la socday ka war qabay tension wuxuu ahaa iyo ciidamadii la socday markaan meesha tagnay waxaan u tagnay madaxdii iyo madaxweynuhu iska qoslaayay anigu hadda mas tafaasiileynaaye inuu waxba dhicin loo malaynayo marka tolob waxaan isir wax oon ula kac loo tuuray ma ahayd waxa kan wax ka badan
لما وقتها وإنه جرا هدي واحد دعان وإنه جرا tension security يديار جرو لأن ساعدة كم هذا كيلو السعودية كوربها له مرة قاركوده وحالي الكلاسيفيكيشن وحلا شيء صدق سنة كتب لك الصومال هذا ويك بعدين عشان we can't وحان أرقني وإن الشيء على جماعة مستكرر شركة دوس مراب ليسوق يمد هذا مركان أرقنا tension كذا كصومالي ده هست يوحى عن كبقينا مرلبات إن الصومالي كدعان iyo kala taagnaanta jirta iyo anoo og sidoo u fakarayo inuu dalka xoog ku qabto siday la tahay mar labaad waxaan goostay mar haddaan imid issueski kala waa iska dhignay saddex issue waa lagu soo reebay saddexda issue inaan kala soo noqon iyadoon xal laga gaarin labada issue laba kamid ah dadkii ka tabanay xamar bay joogaan in laga xajooday waa u diiday waxa ay hadii dadka kala diideen kaliya uma doodi kartid waxaan rabaa inaan wax yar dib u celiyo halkaas waxaad ogtihiin halka waxaan ku qabanay heritage oo xilligaas inaan anaga hoosti garayno runtii markii ugu horreysay Soomaaliya lagu qabtan ay tahay cadadka dadka imaan kara Soomaaliya markii la madaxda Soomaaliya imaanaysan aan garan karo culayska ay la imaan karto waxaan ka doorbiday inay halkaas fursad ku jirto dadka Soomaaliya isku arki karaan mar labaad wixii khaldamay lagu sixi karo aysan ka duwanayn go'aankii aan qaadanay 26 January 2019 runtii waxaan dawlad ahaan mishinada awoodda dawladda leedahay dhan u jihaynay in shirkaas uu qabsoomo muddo yar waliba iyagu nagu wargeliyay sidii la rabay inuu qabsoomo waxaan uga mahadcelinayaa bulshada reer Puntland iyo dawladdoodaba inay si sharaf iyo karaamo leh ay shirkaas u qabteen waxa halka yimid dhammaan madaxdii Soomaaliyeed marka laga tago madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo dhowr qof oo cudurdaar ku maqnaa labada state kamida waxay noqotay fursad lagu wada hadlo waxaan qirayaa maanta madaxda halka timidna ay qiraysaa nimanka madaxweynayaasha hore ahaa iyo ra'iisul wasaarihii hore iyo musharaxiintu in ay muujiyeen dabacsanaan iyo inay muujiyeen wax walba oo jira in la xalliyo inay diyaar u yihiin waxaan halka ka dhacay shirarka caadiga marka laga tago iyo gaargaarka ah shir ay isugu yimaadeen dadkii dawladda matalayay oo ahaa saddex maamul goboleed prime minister ku xigeenka iyo labada speaker iyo madaxdii u tartamaysay xilka madaxweynenimada waxaana weheliyay madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole intaas waxay gar dhigteen inay u baahan yihiin maadaama si doorasho u galaan inay helaan process furan tala kuma haysano walow aan jeclaan lahayn inaan ka qayb galno laakiin kuma haysano waxaan rabnaa qodobada mugdiga iyo shakiga naga jira in laga shaafiyo shirki labaad wuxuu ahaa intii dawladda matalaysa gaar isugu nimid waxaa noo muuqata inay gar tahay doodoodu inaan ka jawaabno waxaa soo baxday jawaabta annaga aan siino inay kaafi ku ahayn iyadoo ay saddex maamul dawladihii xubnaha ka joogaan labadii speaker joogto ra'iisul wasaare ku xigeenkii joogo waxaa halkaa ka soo baxday inaysan ilaa maxamed cabdullaahi farmaajo la soo qanciyo maahan inay tala kala jirin waxaan halka ka dirnay speakerka aqalka hoose ra'iisul wasaare ku xigeenka iyo madaxweyne qoorqoor inay tala ka keenaan xaggu ugu tagay meeshaan tala ka sugaynay madaxda halka waxay joogeen wax laba way ku dhow inna shirkaas socday inna hawshaasi u joogeen ergada markii la dirana waxay dhaheen inta ergada noo imaanayso waa sugaynaa culayska ay leedahay la garan karo in annagana noo leedahay iyagana u leedahay in laba week dad mas'uuliyiin oo protocolka ay leeyihiin u baahan yihiin aad mareynaysaa inay marti noo ahaadaan sidaan u sugaynay inuu maalinta jimcada ah jimcay ku beegneed baan filaynaa noo yimaadaa habeenkaas xaflad baa Puntland lahayd
waxa ay timid fariin ah inuusan imaan karin duruufo jira awood isaga maana wada hadal laakiin waxaan idhi shaqadii loo diray hadduu soo qabana imaanshaha ma aha caawa xafladeeda muhiim maahane birriba ha noo yimaada ama fariin kale oo saxa noo soo diro isla habeenkii markaan shir ka soo baxnay waxaa la qabtay press conference lagu caddaynayo in doorasho la aaday dalkii meeshaan sugaynay jawaab shirka markaan ka soo baxnay baan warkaas maqalnay waxaa la yidhi clipka waa la hayaa laakiin lama sii deynaa ilaa birri maxaa loo hayaa waa yahay maalintii ku xigtay ayaa la sii daayay isla subaxnimadii in dalkii doorasho aaday meeshaan talada sugaynay farsamooyinka doorashada dalka socda horta saasay u ekahay markay taas dhacday ayaa inaysan soconayn la arkay ayaa shirka dhuusamareeb dhashay laakiin ku talagalku wuxuu ahaa waxaa la yidhi labadaasna ha iska maqnaadaan saddexda kalaa la qabanayaa iyagaa imaan doona hadday imaan waayaanna war ma hayaan xoogaa lagu keena wararka aan helayn weli annaga riyaan u haysanaa waxaa waddanka ka socda shirkii dhuusamareeb baa yimid ku noqon maayo waa aniga ka sheekeeyey markii gada la soo gaaray ayuu dhaqaaqi waaya shirkii guddiyaha un kala saaray madaxweynaha u tigaani gada maxaa ka rabtaa iisha waan kaala shaqeeya markaan maalin iyo ziyaado nerfiska ahay waxaan qabta garan waayo aan arkay hadda inaan cid kale u maqana aysan jirin ayaan waxaan goostay inaan si sacrifice arrintaa uga shaqeeyo waxaan idhi gado waxaa ka rabtid iisha waxaa soo baxday in uu gado inuu isaga maamulo ay rabto waxaan idhi waayahay adiga maamul laakiin formalo horta waxaan idhi gado reerka ka dhalatay maanta waxba qaran ma reexaan ma waxay rabaa inay ka go'aan Jubbaland mayuu yiri anna ma rabo iyagana ma rabaan maxaa rabtaan marka inaan doorashadaas iyo maamulaan rabnaa waxaan idhi waayahay formalo aad ku maamuli kartid gadana ay uga tirsanaanayso Jubbaland aan ka fakaro maxay kula tahay buu yiri ani markaas ilaahay baa i waafajiyay qalin warqad ma haysan waxaan ka soo shaqeynaa markaan arkeen wax akran yihiin waxaan idhi gado dib u heshiisiin baa markii hore la horta hala galo oo Axmed Madoobe taagnaa horta dib u heshiisiin maamulka la soo celi ciidanka hala saaro waa process dheer isagana oo I don't know sanad iyo ka badan qaadan kara waxaan idhi haddii dib u heshiisiintu ay saa u adag tahay laba aan kala saarno Garbaharey in fikraddaas markaan halka joogno waa la develop gareynay Garbaharey issue iyo gado issue waxaan idhi maamul gobol marka cidda hawshaas fulinaysa awal la ogeyn waxaan idhi maamul goboleedyada hadday hawshaas fuliyaan oo iyagu intay u diraan guddi dib u heshiisiinta bilaabaan lana kaashadaan cid kasta oo ay khusayso oo aysan ku jirin maamulada ay ku jireen Jubbaland ay ku jireen arrintaa ka waran waxaan qaadanaynaa baan idhi qorshe ah in dib u heshiisiin guud la furo lagana bilaabo Garbaharey maadaama doorashadii socoto oo Garbahareyna aysan ka dib dhici karin doorashada kale oo caqabad noqonayso waxaan idhi muddo bil ah Garbaharey waa lagu dhameyn karaa si loogu dhameeyo maayarka hadda jooga gudoomiyaha degmada hadda joogana waa laga qaaday kii hore Axmed oo laga tuuray oo intii la xirxiray oo waliba Etoobiyaanku xirxireen ay ka tuureenna isna lama soo celinayo Axmedna wuxuu taagaa ka hala soo celiyo kaas sharciga iyaguna kan wada labadaba laga qaado mid community-ga isku raacsiin intee keenaan guddigaas ha u dhiibaan warqadda marka ha soo qorto Jubbaland oo sidaa sharci ku noqdo markii hore waa la fiicnaatay waayahay buu yiri waxaan idhi shaqadaas ma ku shaqeeyaayo raalli ma ka tahay buu yiri curfi Soomaaliyeed baan raacay mareexaankii joogay dhuusamareeb madaxweyne ku-xigeenkii wasiirkii arrimaha gudaha iyo wasiirka ganacsiga aan u yeeray horta waxaan u sheegay prime ministerka waxaan u sheegay qoorqoor waxaan ku iri arrintan waa ay mudatay saanaan rabaa inaan u galo xeer kale ilaa dadkii dawladda iyaga waddanka madax ka ah
marka waxaad gudbi kara waxa ay farsamo kale aan galayahay waxay dheer hadaa wax xalinayso waxba kama qabno iyagii baan u yeeray qaarkood waa ay eedeeyeen inaan maaragtay axmedow u hiiliyo oo waxaan ku eedaha noo dambaysa hadda aan xalin wadadaanaan arkaa in wax lagu xallin karo maxay la tahay runtii raggu aba ku kala qaybsanaan laakiin si unanimous waxay yiraahdeen waa ra'yi fiican waana kula qaadan waxaan in ila qaadateen madaxweynaha uu tago sheegay ana ballanta xataa soo qabtay waxaan madaxweynaha inaan iyaga arkayna u sheegay iyagana arag baa inta kuma ekaana waxaan la hadlay Cabdirashiid Janan oo jooga bolad xaawo waxaan ku yiri waxa aad raadinaysid waa degaankii maamulkiina xukumayeen oo xoogni laga saaray waa ogahay laakiin waxa ka maqan hadaa xoog ku socodsan kartidna waa wax la gartay hadaa xoog ku ceshan karna xaalad waa lagu ceshaday niyo bahasha siyaasad baan ku dhuganaynaay ciidamadan iyo waxa kan dad inay naga dhintaan muhiim ah ka daayay ra'yi siyaasadeed baan wadnaay waxaan ka codsanayaa hadduu hirgelayo inaan la qaadaysin waayo axmedow waa madaxii Jubbaland laakiin qadiyadu waxay ka dhex taaganta reer Gado oo waliba markii hoos loo sii fogo reer guri iyo wax kale aan garanayn u kala baxay khatarteeda leh ma garatay oo is haysta waxaana uu sheegay waxa is haysta haddii aad dhihi leed ogaadeen meesha muuba jooga Gado waxa isku haysta waa raaskaagi dagaalka dhacay dadka effect gareey waa iyaga isagina waa la hadlay waxaan kaloo la hadlay madax kale oo axmedow la socotay oo fartaa ka mid yahay iyo wasiiro iyo gobornarkii Gado axmedow oo dowladda Jubbaland u ah oo meesha jooga kulligood waxaan ku qanciyay inay arintaas qaataan markii isagu aqbalay waxaan u tagay axmedow waxaan ku iri wixii badnaa oo sheegi jirtay oo carada ka muuqatay iyo adiga raggaaga inaan laqdaan raba tan inaan la qaadataan anoo kiligay aniga iyo wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland baa wada tagnay wuxuu yiri hadaad xal keenaysaan dadkii aad ay khusaysan aad la hadashay sida aad sheegaysid oo Cabdirashiid waa u sheegay culayska aad ku haystana qayb anaa ka dejiyay dadka waa engage garay wuxuu yiri waxba kama qabo habeenkii waxaan ku seexanay bir subax shirku inuu bir dhamaanayo oo la saxiixayo draft gudiyaan saarnay farsamo ah waxa la diyaarinayo subaxnimo maalintaas waxa in la qorsho ahaa in la diyaariyo communique subaxdii markaan imid buu aniga iyo Axmed Qorqor wuxuu yiri waa in raba waa u tagnay wuxuu yiri wixii aan xal isku ogeyn ma shaqeyn karto nimankii gada jiray reetolkay ahaa qorshahaas ma ogola warqad axmedow saxiixay ama wasiirkiisu ma qaadanayaan waxaan ku iri madaxweyne shalay reer Gado intii ninkan xukumi jiro mudday dawladda ka tirsanayeen oo hadda qayl kama jiri jirin qayladan waa khilaaf iyo qorshahaaga hadda aad u qanacsan tahay dadkaas waxa ku filan wadadaas aan qaatay hal raac ma yiri waxaan u baahanahay inaan laba week ka bacdi isku soo noqono waxaan ku raamay taas suuragal ah marka arkay inay kala taagan tahay ra'iisul wasaaraha la joogo waxaan halkaan noo hakiyo anagu aan shir aniga iyo ra'iisul wasaaraha iyo Axmed Qorqor aan meel fariisanay waxaan ku iri arintan xal bay u baahan tahay أنا ورت وحايري مدحونه حجم ما هني أنا وحاي صوب بحذي هالشيسك إلا صحيح مرة لكن أنت عوضي كرنا عوضينا أحمد آد وحوقهم هذا إن مطلبات قل مذو شر لي سجون إنه بربرو رنتي وأنا بينفل حايل الدجان كي يدك هذا بعيب كتها وحاني الددال أنت عوضي كرنا عوضينا الصبح هذه السجاء طبعا كميلا سهي إلا هبينك الدم أرورتي لبادي ميامس كودي أنا يسوي عن كوجن الددال إن نقنع إنه مدحوينه أحمد أنا وحاني أحمد ما نسكت ينا قنعيه أدوم مدحويني سوقني ددال بدن ما سمينا مركلية وحى سعون ويدي إن جدّ ومجعابه أو إذا Jubbaland مجعابين أما دولة مجعابه ما هروح كلام جنامير
axmedoo shirkaas intuu neers ku noqday wiiro aan iska kayfa saxadii de ninkii loo tilinayaa aan hayo maanta ninka isku wareegay meeshan oo ku caajisay meediyaha waad aragtay maamulana shirku ka carooday baa la yiri ma aysan jirin waxa dheeraada time markii uu baxay oo isku daynay madaxweynihii waxaan soo marsiin weynay degmada Garbaharre maayarkeedii inuu farax ka qaado oo adkaato aniga maamulo maahan cid kale maamulo shir luqad saas shirkiina qorqor waska kala tagnay gurigu igu yimid habeenkii anigu disappointed baba noqday wuxuu yirniyo waxaan rabaa inaan shirki la badbaadiyo sida lagu kala tagin maxaan kula qabtaa axmed madow ila aad weyn waa israacnay axmed waan u tagnay waxaan ku yiri waxaana jiree maxaa tala wuxuu yiri hadee laba mid ani ii keenu yiri gado Jubbaland ma aha waxba kama qabo yiri ciduu rabo ha magacaabo madaxweynaha warqada soo diro inuu isaga maamulkiisa si muaqada oo maamulayo hadday Jubbaland ka tirsan tahay wixii ugu yaraa oo aan aqbali karo wax weeye gudoomiye degmo oo annagu aan soo select gareynin ya dadkii deegaankana aysan doorashooda sida caadiga ku soo bixin oo sida golayaasha deegaanka loo sameeyo oo cid kala keentay waliba dadka meesha joogo keenaya waa dadkii madaxweyne Cabdullaahi loyalka oo ahay gudaha joogay anu xataa mar hoos waa ula hadlo waxaan ku yiri warninka imaanaya adiga keensan ay xataa hadii wali aragtina maamush formalada aan raacno ilaa annaga si kale u magacaawno male dawladda dhaxaa magacaawdana ceeb bay ku tahay oo nidaamkii federalismka meesha ka baxay guddi aan dirnayna sharci uma haysto inuu magacaabo waxa u baahanahay inaad arinta sida laga daayo habeenkii marka Axmed ka nimid oo aan nimid oo nimankii kalena nagu daaleen waliba madaxweynaha Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu madaxan celinaya dulqaadka ay muujiyeen meeshiiba inay shaqahiina soo baxdo maxaa yeelay niman daarooda iyo nin marti loo yahay ba ordaay gada kaliya wax leeyahay horta dalka la rabo leeyahay hal la xaliyo dadka ay sheegayaan Garbaharre xalin weyn ina ogaataan raba wuxuu yiri waa tagay waxaan hadda madaxweynaha haduu yiri waa tagay anagu farq kuma dhigi karnaa markaas wadana wuxuu damcay sida loo tagay in anaga la qaadno warmatiyood la soo saaro waxaan hadda waxaan dhahnaa anaga ma garanayno inaan ku eedeynana ma rabno oo dhaano isaga diiday marka waxa tiraahdaa wada hadala socda shirda ma la isugu soo noqonaya nin ayaantan soo baxo dubal lagu sheegaya habeenka hadlay wuxuu ku wareegay waa la sheegay oo aragtay ajaa'ibka adduunka maalin waxba la arkaya dubba adiga habeenka dhawaaqay gabdhaha Hargeysa wuxuu yiraahdaan baa la yiri wax aadaanka hore isku kaya markuu dubba dhawaaqaas ballanta noqotaa la yiri saqda dhexe wax uu ku hadlay aan la garanayn marta dhawaaq la istaagay masaa'ibka soo baxay habeenkii uu wax badan oo aan hadda aan garanayn oo dhuray madaxweynuhu waa tagay intii uu joogay waxaan ku iri war madaxweyne soo ma ogi 8 February inay soo dhowdahay oo deadline-kii doorashada soo dhow yahay maxaa dhacay yiri waxaan iri soo ma haboon inta ka horeysa in at least heshiis la gaaro process-ka uu socdo warqadii Xasan Sheekh uu qoray oo kaleeto oo ah in dawladdan ay tahay dawlad aanan waxyaabaha masiiriga oo qoran tahay waa marna internet-ka ku aragteen oo muujinaysa inay dawladdan ay doorashada maamulayso qor warqadii xataa koobiyan wata anoo ajendaha noogu jirtay lama sii gaarin waxa gada Garbaharre dhaaf weyn warqadana qor horta warqadii iyo markuu maqlay 8 February oo wuxuu yiraahday أنا واحد أصليه دنيجي شو واحد بقول له إنه تجو 8 February إنه بروف جرايو إنه 8 February واحد هاجرين ويقول 8 February واحد لها من جرت دستور كا يقول واحد دستور كنت كا يقوليه برلمان كبا متك بدل متك معها أنت متك لك إيمانا وسيجو ورد ما يلا هدس كمان أنا اسمه جرته كسمة وأوكي لكن ما قادن كران قرارات مصيرية
hadda inaad dhahdid shuruucay ansixinayaan ceeb weeye dowladnimada ceeb ku tahay aflagaad weeye adiguna suuragal maaha intii xashan sheekh gartay ma garan weyd intaa samee waa u baxay caradii iyo doodii aniga aan u arkaa inay naseexada u tahay waatuu baarlamaanka yiri siciida waxaan iska qorqorin jiray aniga waxaan isleeyahay ninkan marna lagu xijinayo waa daarood la leeyahay marna la leeyahay dee maamul goboleedka u horreeyay oo u weynaabaa tihiine roolkaaga qaad saas odayada iyo dadka waxgaradka iyo simada oo dhan markay la soo hadlaan maaragtay la leeyahay warmaandhow soomaali meelay ku kala tegaysaa ka talin waxaan isiri bal intii karaankaaga dadaal waa tegey 8 markii dhaafay oo maalin iyo laba iska maqanto shaqadii iska socoto way soo wacay waa wada hadalna haye 8 maxaa dhacay yiri waxba dhicin haye هاي سديد وأوجد أنا وحبد عينه أما أنا ممكن رجع هردانو مركو سيدو ذي كعام بايرو قدر هذا كدهت وحياة في قاله هبين كده مركو واحد عين صليب يوم صدق يسوع حدي واحد يتربو يرني ممكن هو قدر هذا كسر لا واحد صدق تمارك توير ما حير ما مارك عيد رمضان أو دبابات كوتنا ما بوجينا هرتا قرقر كان الشيء جاي أنا وحنا كم مغلب مالين اللي يري قل مدو قال لك يعني أو دجال كالسعودي قذي اللي جايين واه مغلب قابت الصدق هذا كده قال لمن وحين نقطة الجير كده حصل هرتين أساس أنا أكود جريسان عربة هرم عادي يقرقر مالك لو كده قال لمن ماله أنا وارث جري ورحنا عيدا كأنت اللي جه وحليش جاي إذا ماذا تركضوا تابري يكوا وحاول اسكو دردرو عيدان هدا انيga aan sheegay dadka xinayo tiro badan oo dabaabaad wata hada hal maalin shabaab kama aadin wadada afgooy iyo xamar isku xirto xiranta hurwa lama tigi karo war gorgorkan haday dadka wax u qabanayaan jidadka maxay u furwaayeen niman meelay ku jiraan oo cid arag oo ani hadda wax lagu akhriyo ma garanayo hada awal waxa la soo saas beeyay karto dadka reer Puntland saas dhahan لكن أوجاد الصومالي نقاني ما إلا الشباب شيء كدك توال أركي الصومالي سما إن إسقرحيان أو ذلك قيورعان نمن كان أنا جالس الله توبر الشك وين أيجي مرك وحنا حريصة وإليه مجلس خرط الضلك ما يجوا كل صعده وعن رأينا صفي على فهمتها تك وحنا الله مشى بلد لكن وقرسون وين نروح نيجي يعني maxaa yeelay haddaan ka digi weyno oo dalkan dagaal sokeeyo ka dhaco oo qabaa'il la isku laayo oo xoog la isku sheegto oo dalka dabaabaad la jiirsiyo annaga dambiilayaal noqonayno nimanka internationalka hadda dhahay 17 September hal la ixtiraamo 17 September alam taraas oo dhaaftay 19 February ka dambeysay habeenkii markaan doodayno wuxuu dhahay in dhacde oo aniga waxa ka yeersiiyay hadda aan garanayn ilaa maanta runta iska sheegayay ayaantii horena wuxuu yiri ad sabaan ku tukanayna maalintii dhaweydna waxbuu sheegay labada marba waxba dhacay ani ay doona cid u shaqeynay laakiin reality-ga marka loo hadlo waxaan ku iri bal dal jirka dahsoon ninka wuxuu rabo hadho cid ka yeersiisay ilaa madaxdii intay hadashay dhilay dawlad ma jirto madaxdu waa hadlaysay maalintii ka horeysay meeshay maraayeen waxay lahaayeen mudaharaad biis fulaan rabnaa mid nabadeed aan rabnaa ninkan wuxuu yiri hadaaba samaysay gartay kii maalinimadii dhacay oo ra'iisul wasaarihii 3 sano iyo barka ra'iisul wasaaraha ku ahaa oo calankiisa u lulaaya xabada laga daalay maxaa ku fasiraysaa wuxuu yiri cidii sharciga ka hor timaabta talaaba laga qaaday horta madaxweynaha meesha noo fadhiya literally kullu ari waa geesin intaan hubo laakiin geesinimadaas tii la rabay miyaa mise mid kale miyaa idinka ka jawaabi doona maxaa yeelay geesigu waa midka xaqana ka hadla xumaantana dadka gacanta ka qabta maaha nin ku dhiirada wax cirib dameedkeeda uusan garanayn runta markaa inay sheego waxa hadda xamar ka socda waxaan ka baqayaa inuu dagaal sokeeyo oo hor leh iyo qax hor leh dadku waxaan hadalkay ku soo gabagabeynaya ka codsanaya dadka reer Muqdisho iyo madaxdooda
inay intii ka fogaan karaan in la geliyo dagaal inay ka fogaadaan godin yahay ima goyseen haddaan gabalkay kugu jirin baa la yiriyo madaxweynaha kuwa degaankiina garab taagan oo falsafadaas la qaba oo inay dalka xoog ku xukumaan raba dadka qabyaalada ha u kala saarinina dad mararka qaarkood caadifadu qaadaysa arkaya dadaalka aan ku bixinay inuu dagaal dhicin oo dadku waxay heshiis ku yahay ku dhaco oo khatar kasta u wajahnay waad garanaysaa mararka qaarkood meelaha aan tagayno runtii walwalka iyo ragga ila jooga ka sheekeyn kara waxba la qarin maaye magaaladii xamar haddii laga wiswisay oo laga shakiyey oo la yiri cuntadeeda ha cunin oo waa sunbaa ku jirta oo waa lagu dilayaa war ummad tarar ku jirta ma al-shabaab aan ka baqnaa mise filla Soomaaliya aan ka baqnaa horta reality-ga aan sheegay maxaa yeelay asaaliibta la adeegsanayay mid al-shabaab sakeeyay wax difference u dhaxay male maalin walba waxaan ku jirnaa threat dadka Soomaaliyeed oo dhanna waxa la geeyay inaysan hadli karin ninka madaxweynihii magacaabay inuu ra'iisul wasaare noqdo oo fursad u siiyay inuu dalka Soomaaliya madax ka noqdo oo Sheekh Shariif ahaa ee madaxweynihii xilka ku wareejiyay ka horeeyay xurmada u qoori waayay oo marna diyaaradda u diiday inay ku aadaan Kismaayo marna iyagoo beledweyne aadi rabay laga hor istaagay maantana iyagoo hotel jooga lagu xabadeeyay ra'iisul wasaarihii u shaqeyn ayaa dhaxas waxa dhigi jiray ra'iisul wasaaruhu muxuu u hadlay ayaa wixii jira u sheegi waay soo waa nin malaha og nimanka waxay yihiin ilaa nima ya waxa dhigi jiray muu wax cadeeyo halku markuu yimid ragga kale waxay muu hadlo warninkaas ka daayay marka waxba jireen sababtoo haddaan wax ilaahay waxaan xishoonin haddii ilaahay kugu xiriiriyo khatarteeda leedahay runtii waxa Soomaaliya ka socda wax laga aamusi karo maaha waxa ay ku socotaa dalkan meel halis ku jira waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed si midaysan iyagoo iskala saarin dictatoriya inay ka hor yimaadaan iyagoo si midaysan oo qabiil isku kala saarin inay sharciga ilaaliyaan iyagoo midaysan waxay heshiis ku yihiin oo doorasho inay galaan wax nin leeyahay ciidamada ana iska leh ciidamadaydu yiri hadda tii u dambeysay wallahi inaan been ka sheegin wuxuu yiri garow hal yimaado ma imaanaysaanay la fahna uga baqnay wuxuu yiri dhuusamareeb ruuxay dhuusamareeb hadda kan inuu xabada ka dhacay may ana waxba kama dhacayaan ugu dhahay I don't know ciduu og yahay macnaheedu waxay tahay ku wax soo tuurna waa yaqaan literally maanta inaan wax ka qariyo ma rabo waxa meesha soo socdo niman international la yiraahdo oo FMS iyo waxaas FGS iyo SVMA oo ku haya waddamadooda waxay u qoraacay jirta laakiin ana waxa inii sheegayaa wax aanan ogeyn inaan Puntland ku matali karin anigu aadi maayo habraha iyo ciyaalada meelaha la sheegay ninka daarood maxaa laga rabaa war ninkan daarood ana mu umaleynaa inuu daarood harb jiidayo run ay sheegayay ha ku kasoomina nin daarood har u jiidayo aan soo arag hatta marraxan in har u jiidayo soo arag marka caadifada intii la iska daayo dardaarankayga ugu dambeeya waliba saaxiibada kale oo Soomaalida waa necab tahay Puntland aan kula dardaarmayo Puntland waxa oran lahaa marna yeysan aqbalin nidaam Soomaaliyeed oo aysan raalli ku ahayn oo federaal ah oo wax ka maamulayso oo transparency inay wax ku darsato xaraam bay ka tahay waa in waxa Soomaalinimada la sheegayo waa inay miiskaas dul saaranta Soomaalinimo lagu orkacsanayo hadhowna kuwa ugu qaylada badan ba ugu balanbala badan hadhowna aan la wadi karin dadka masaakiinta ee la siray ee meediyaha iyo dadka loo soo dirdiray iyo lacagaha loo qeybiyay ku siray iyo niman xoog wadaniyiin la dhaho habeenkii habraha u guda dadka waaweyn wax garadka lama hadlaan caruurta iyo habra aan warhayn oo TV-ga iyo aan fiirsan waxaas u sheekeeyaan dadkiina mas'uuliyiintu halka jooga waxaan ii sheegayaa dadkiina waa nila gacan dhaaf hadda aamus lahaydeen oo nila ka xaysan lahaa oo sida hadda nimanka xamar jooga aan noqon lahaydeen oo kaleeto iyo hadda damiir yeelanayd horta idinkeena ii taala wixii dhacay 80-maadkii hadday soo noqdaan waa waxaan anagu isbadnay waxaan u dirayaa fariin ah
adkaynta puntland midnimadeeda iyo dhulkeeda inay tahay arrin lama taabtaana raadinta soomaali federaala oo mid ahna in loo saciyo ilaa ay ka imaanaysana la sabro haadaan in lagu dhaco anugu ku talinayo soomaali aan jecelnahay haadaha lagu dhaco ma ku talinayo waxaa la rabaa ilaa wax cad oo la yaqaan oo wixii qornaal ixtiraama ay yimaadaan waxaan qabaa xoogga waxaa saartaan puntland iyo jiritaankeeda inaalisa waa salaamantiin wasalaamu calaykum waxaan iga codsan lahaa waa daalay inaad su-aal bi weydiinaysaan u malaynaa waxaan qariyo male marka raalli ahaada aad iyo aad marka hore sheegnay barnaamijku su'aalo ma lahan budget stocks waxay ahayd session madaxweyne dadka kula hadlayay marka intaasaan kusoo koobaynaa madaxweynahana waa u mahad celinaynaa kasoo qaybgalayaashana waa u mahad celinaynaa